maasuuliyadda ayaa ina xukunta adduunku waxa gacanta ugu jira wadamada reer Yurub dhulku uu goglan yahay maahane sida beedka oo kale ahraamta Masar waxay astaan u yihiin jiritaanka awoodda shaydaanka iyo cusboonaysiinta madxafka Ibliis hal qolo ayaa dunida dhan maamusha diintu waxbay sintaa oo habaysaa toosisaa oo edbisaa maanka qofka oo isagu mahadho u joog ah waana kaarjabiyad dabiici ah oo maskaxdeenu u baahan tahay diintu waa hormoonka ina geliya dareenka wanaagsan marka aynu quus isa soo taagno marka aynu diiqad duniyeed iyo mid aakhireedba dareeno السلام عليكم intaas kadib waxaan soo baxay anigoo wax badan fahmay dareemay in korka laynaga haysto gartay in aynu garbaduub ugu xidhannahay Ibliis iyo qoladiisa waxaan yaqiinsaday in aynu wax kasta u sameeyno doorasho uu isagu leeyahay oo aynaan ahayn doorashadeena maxaa yeelay kuwa badan ayaa rumaystay duruusta uu bixiyo Ibliis maasuuliyadda ayaa ina xukunta adduunku waxa gacanta ugu jira wadamada reer Yurub dhulku uu goglan yahay maahane sida beedka oo kale ahraamta Masar waxay astaan u yihiin jiritaanka awoodda shaydaanka iyo cusboonaysiinta madxafka Ibliis hal qolo ayaa dunida dhan maamusha ereyadaas iyo kuwa kale badan ayaynu u nahay maxaabiis waxaynu adoomo u nahay qawaaniin aynu annagu aqbalnay jiritaankooga iyo jiritaan la'aantoodaba sumad kasta oo jirta waxaynu u saadaalinaa sabdame aanantiisa meel marin midaasina waa dulinimo arad xumo ayaynu kaga sugannahay diinteena suuban silcuna halka uu naga fuulay waa dayacay iyo darxumada diinteena macaanay waxaan isweydiinay sidee dadku mar kale alle u baran karaan waliba si ilxaamnimada ka dheer balse waxaan yaqiinsaday inaysan hadhin cid dambe oo arrintan fahanta waagii ayaa mar kale bariyay cadceedii ayaa mur soo tiri markan waan faraxsanahay maxaa yeelay waxaan tukaday salaadii fajr waliba aaminteedii saxda ahayd ugu yaraan nin macquul ah ayaan ahay ayay naftaydu leedahay waxaan soo xasuustay sheekadiina dhex martay aniga iyo odaygii duqa ahaa waxaan si aydaanin ogeyn uga bartay qalcado badan oo cilmi ah sidoo kalena wuxuu ii ballan qaaday haddii aan iska aamuso inuu isii bari doono waxyaabo kale oo ruuxda dunida hagta laakiin kolka aan idiin warramayo waa kol aan ogaaday ruuxda uu sheegayay waxay ahayd waa iftiinka dunida iyo sidoo kale holaca shayaadiinta waa waxa baajiyay oo dib u dhigta qadarta rabbi waa sadaqada waa sadaqada oo waad yaabtay waxaad la yaabtay sida ay wax la quursado u tahay islaamka dhexdiisa intan dambe midaas ayaad ogaatay balse tani waa macaadin ka mid ah macaadinta islaamka waana fursad aanan marnaba laga fursan karin kuwa fahmaya waa ay liibaaneen xaqiiqdii markaasna waa dad leh astaanta islaamka ama astaamaha islaamka dabeecadaha isburinaya waa u bidhaan iyo calaamad looga sooco dadyowga qalaad ee aan muslimka ahayn waa dad laabtooda diin xumo xaradhaamisay quruxda diinta iyo quraanka milicsiga mudan ayay u arkaan waxaan sinaba loogu nafisi karin shakhsiga islaamka sunniga ahi waa mid ilaa xad ka hooseeya indhaha qalaad sal aroorna aan ku lahayn dunida horumartay iyo tan saboolka ahba damaca iyo duudsiga libta siinaysa keliya in laga faano inta macaaneed ayaa ilaa xad ku dahaadhan quluubtooda dhalinta Soomaaliyeed badidood waxay la rafaadsan yihiin diin xumo daashatay dhaqan dooris karkaarka jabsaday iyo masiixiyeen ay sokeeyo qorsheeyeen tanina waa wanjalaadii kala qaybinta Soomaaliga awalba aan miska diimeed lahayn iyo maleegyo kale oo la shireeyay dad baa jira dhaqan Soomaali ah iyo muslimnimo ku suntan isla markaana ka macaasha dad yawiiqay hanaankii diimeed ee uu alla dejiyay waxaan isweydiin mudan tabtee xeeladee sidee iyo qaabkee ayay adeegsadaan dadkaasi qadarkuse ma waxa iyaga u hiiliyayba kashan u fura laab xadnaanta iyo isdhexgalka bulshada halkee ayay ka unkameen ma gudaha mise dibadda asalka shay kasta iyo halka ay wax kasta ay ka unkamaan waa manhajka aqooneed waana meesha la badhitaaray lagana soo saaray Soomaaligii aanan wax dhuunta dhaafsiisnayn diintiisa ka yaqaan hooyooyinkii ayaa caruurta malcaamadaha u dira dabadeedna natiijada ilmaha uu ku eega in uu malcaamadii tagay macallimiintii ayaa u halgamaya sida ay quud uga heli lahaayeen ardaygan wax kastoo anfici lahaa laga ciideeyay diidana looga dhigay inay yihiin dad dambeeya isla markaana aan loo baahnayn in uu ka daba wareego malcaamada iyo goobo lagu dhigo afka Carabiga aabayaasha ayaa iyaguna badaabahayn
diinta iyo quraanku waxay noqotay wax kale lagu gaaro oo iyadu qiimo ma lahanba barashadeenu waa waxa ugu liita qofka Soomaaliga ah daawade iminka qulqul dhaqan dooris iyo mid diin bedel ah ayaa xadkaha goostay sumcaddii ruuxii diinta u dagaalami jirtayna waa ay gabaabsatay gabalkii ayaa u dhacay Soomaaligii qabka lahaa Soomaaligii ku faani jiray in diintu soo gaadhay madiinadii nebiga ka hor saamayntii nafsiyeed ay bulshadani diin xumada ka dhaxleen waa mid ilaa haatan xal loo laayahay ma bartaan ma fahmaan mana ku dhaqmaan darxumadana isagama leexiyaan xukunkii Alle inoo soo dejiyay nabigeenuna naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo inoo soo waariday si taa ka duwan waxay noqdeen sakoeye birta iska asla diintana aanan xushmayn isticmaalkii faashiistaha ahaana u holooda hanaankiisana raaca isha xun ee aan ku eegayahay dhulkan Soomaalidu degtaa waa mid habeena diimeed ay dabooshay kolkii aan anigu boorkii ka soo dhex baxayna waxaan ku waabiraystay cid diinta u fayoobay inaysan jirin laakiin tani mid aanan waxba diinta u dhimayn ay tahay haddii dadkeedii ay sidaa u duloobeen diintu ma ahan tan dulowday kaliya cidda diinta darteed u luudi doontaay waa innaga argagixiso dhiig miirata ah siyaasiyiin gaalo ah shacab u jahli buuxdhaafshay dastuur xukunkii Alle aanan lagu qorin kutub aanan magaca eebba lagu bilaabin iyo dawlado musuq ku dhisan miyaa garanaya diintu sharafta ay leedahay dabcan waa maya waxyeelooyinkaas oo isbiirbiirsaday kadib dhalaankii dhashay waxa uu la koray jahli iyo darxumo diimeed kii korayna waxa uu la hana qaaday dhaqankii iyo saqaafadii suubanayd ee midiga la isaga wada dhigay diinta intii dhulka ka taalayna inta calal lagu duuduubay ayaa dalkaba laga haajiriyay daayartii Soomaaliyeed waxa qiilqiil ka gashay damicii diinta waxaana isku mid u noqday nolosha xoolaha iyo tan ay iyagu ku nool yihiin sadbursigii reer galbeedka ayaa dhaxal siiyay kii tamarta diimeed yaraa in fooqa sare uu ka fuulo diin iyo waxay sheegtaba haddaad u fiirsato uguna fiirsato si xeel dheer waxaad arkaysaa in dhalinyarada Soomaaliya ay agtooda ka engegeen walxihii qiyamka lahaa ee diinta dhaqankii dhufsanaa yaraha u ahaa ay guntallaabo hore uga qaadeen hablahoodiina dhaqankii suubanaa ee diinta inta ay qoosheen bay sida hadhaa aan loo baahnayn dibadda ku daadiyeen diintii inta ay dooriyeen ayay ugu xardheen dhaqamo iyo dhiiranaan ay faraka hadalkeedu jahliga ka barteen haddii dhigaal iyo dhiganana loo meersho ay ilduufaan oo ay dabada u jeediyaan waa hablahaas dagalku la ladi waayey qurux beeneedka loo qorqoray iyo maqaarkoo la doorsho si loogu soo dabo kuwa la go'doonsan rajada doonista iyo ka dhabaynta damaca xooggan ee ku aasan duunkooda quruxda dumarkuna waxa ay noqotay badhitaraaraha midka aan awtaad diimeed lahayn Soomaalidu aayihii diimeed ay beeleena waxay ka dhex baadhayaan meel uusan weligii ku hakan waxaa la soo bandhigaa in ka tegidda diinta ay tahay ka xuub siibashada maxaabiisnimada uunka iyo in kabubyada nafsadeed aysan marnaba diinta ku jirin oo loo qaadaa dhigo waxaan iyada ahayn waa maxay waxtarka diintu kolka dhan wadaagsin laga fiirsho diintu waxbay siintaa oo habaysaa toosisaa oo edbisaa maanka qofka oo isagu mahadho u joog ah waana kaarjabiye dabiica oo maskaxdeenu u baahan tahay diintu waa hormoonka inageliya dareenka wanaagsan marka aynu quus isa soo taagno marka aynu diiqad duniyeed iyo mid aakhireedba dareenno diintu waxay inaga caawisaa in aynu xasillooni isku soo daabulno innagoo u fiirsanayna aayadaha qisada nebi ayuub iyo nebi yoonis waxay howlgelisaa qaybta jamashada iyo noolaashaha mabda'a saxda ah iyo iska saaridda nolol waxtar la'aan ah oo hawl kastoo qabato waxaad u arkaysaa in ay tahay mid aad Alle ugu dhowaanayso caawimaad sadaqo hadal wanaag dhimrin intuba waa macaashaka aad ku suubsato waxtarka nolosha iyo tan aayahaagaba ujeedooyinka ay ka mid yihiin in aynu qalbiga basaas tirno naftana aan siino qanaaco wax ku ool ah ayay diintu samaysaa ma ahan kan ka qayb qaata ee iyada ayaa samaysay ujeedooyinkaas waana meesha ay iska soo galaan aqoonta kasmanafeedka iyo cilmiga diindarsiga daahan si adag nolosha oo sideeda loogu noolaado ay qayb ka tahay diintu quruxda noloshuna waxa ay ku jirtaa in la noolaado ilaa heerka diinta